soo dhawaada saaxiibayaal muuqaalka maanta aan idiin wado waa muuqaal aad iyo aad u muhiima oo laga yaabaa inaad ku hamiyi jirtay mar uun inaad aragto website ama tool ama application noocaasoo kale u shaqeynaya oo waxa aad rabto ku siinaya inaad mar uun ku rajo weyneed. maanta waxaan kula wadaagi doonaa muuqaal aad iyo aad xaqiiqatan muhiim u ah oo maaragtay waxyaabo badan ka caawin doona. marka Google markaad soo gasho, Google waxaad ku qoraysaa article rewriter tool saa ka muuqata. waxaad ku qoraysaa article rewriter tool. waa mid dib u qoraya qoraallo, artikello, documentiyo, essays, paragraphs, sentences, alla wixii aad rabto marka luqadda Ingiriiska aad doonayso inaad meel u dirto, inaad qof u dirto, inaad koob u qorto aad doonayso, waa application ku qoraya. marka waxa ku qoran free article AI article rewriter. wuxuu dib u qoraya marka waxyaabaha qoran oo kale haddaad markaa qayb ka qorto ku habeynaya dib kugu qoraya. tusaale, hadda waxaad doonaysaa inaad qorto CV, waxaad doonaysaa luqad Ingiriis aad wanaagsan aad ku qorto, dabeeto article baad soo qaadatay ama qoraal hore oo CV hore ayaad soo qaadatay, mana doonaysa inaad haddana koobiyeyso qoraalkaasaad isaga gelinaysaa area cusub iyo qaab cusub oo laakiin la micno ayuu dib kugu qoraya. waxaad rabtaa inaad qorto waxa la yaqaano purpose of statement ama jaamacadaha inta badan ay loo diro waa waraaqo inta badan jaamacadu waxay dalbadaan, ama waxa la yidhaahdo resume iyadna waa warqad soo kale, cover letter saasoo kale. weliba waxyaabaha ay muhiimka tahay inaad ka mid ah essays. jaamacadaha markaad ka codsanayso qoraallo dheer baa la qoraa oo essays la yidhaahdo. waxyaabahaasoo mir adigu isku soo tartar xataa topic aad rabto inaad qorto oo aad doonayso qof inaad u dirto mawduuc gaar ah oo diyaarinayso, aad doonayso inuu aad u qurux badnaado, balse article ama qoraal aad ka hayso, kabacdi qoraalkaasaad meesha ku baas garaynaysaa ama waxaad ku odhanaysaa basti, kabacdi dib buu kugu qorayaa si qurux badan. marka hore aan u galno halkan waxaan qoray markaa wanigan waxaan qoray Google-ka waxaan ku qoray article rewriter tool, kabacdi waan kusoo dhufanaya. markaan kusoo dhufto waxaan toos u gelayaa isaga. markaa waa kan hadda way soo furmay toolkii hadda soo furmay. marka halkan baad ku macnaha baas garaynaysaa qoraalkaaga. halkanna qaybtanna waa qaybta isagu maaragtay qaybta midigtu waa qaybta oo ku soo dhigayo qoraalka isagu ku qoray. qaybtan bidixna waa qaybta aad ku baas garaynayso qoraalkaas soo qortay, ama marka adigu aad qortid ama aad ku baas garay ama waa qaybta qorayso. marka bal aan baas garayno, anuu qoraal baan soo qaatay kaasaan ku baas garaynaya. waaye hadda waa midkaasaan qoraa the climate change has emerged as one of the most significant challenges of the 21st century ayaa halka qoran. marka wada garataan waad arkaysaan Ingiriiska anigu halka aan dhigay waa kaas Ingiriisada aan qoray anigu Ingiriis lagaasaan ku qoray. waxaan doonaya markaa inaan isaga aan iraahdo dib igu qor. markaa daba ka soo qaaday minka mawduucani qoraalka waa qoraal aan ka soo qaatay meel aan ka soo xigtay. waxaan doonayaa anigu mid cusub oo aan rabo oo meel ku tirsado leegana dareemin inuu soo qoro. halka aad aragtaa paraphrase ay u qoran tahay, waad ku dhufanaysaa dib ayuu kugu qorayaa markaa resultiga dib ayuu kuu siinaya, laakiin tan oo la micnaa waxaan nidhaan haddaba. waayahay hadda waa kaas hadda muxuu noo sameeyey hadda waad ka wadi arkay wuxuu noo sameeyey hadda qoraalka noo sameeyey. bal aan isku akhriyo markaa dabtan taasi sentence ku sareeya wuxuu ahaa climate change has emerged as one of the most significant challenges of the 21st century, which wide-ranging implications for the ecosystem, economics, and human societies. halkan waxa with its profound effects on ecosystems, economics, and human societies. Climate change has been one of the 21st century is the most important issues agriculture, which is highly reliant on environmental factors like temperature. marka waa soo ka saxdiya haddaan nidhaahno oon dib haddaan usii nidhaahno waan kusii dhufan karnaa, laakiin hadda midaasaaba inagu filan. marka qoraal aad iyo aad u muhiim ayuu noo soo qoray. bacdi waxaad markaa dareemaysaa labadan qoraal isku mid maaha. hadda qoraalkan hore waa qoraal meel aad ka soo qaadatay tusaale ahaan
CV hore aad kasoo qaatay ama qof aad kasoo koobisay ama assignment lagu diray ha noqdo. Kadib waxaad halkan markaa dhiganaysaa qaybtii kale ee markaa adigu aad qaadatay. Kabacdi qaybtan aad qaadanaysaa markaa adigu aad leedahay baad koobi karaysanaysaa. kabacdi meesha markaa adigu aad rabto ayaad la tegaysaa. Koobi baad leedahay meesha markaa aad rabto ayaad la tegaysaa. haddaad ku qanci weydo waxaad sii leedahay haddana advanced paraphrase dib baad usii qoraysaa. advanced paraphrase baad leedahay dib baad macnaha usii check garanaysaa. anagna tan labaadna anagna markaa muhiimada horta kii hore waa inaan helno waa kan dib buu noogu soo qoray. haddana advanced buu noogu macnaha sidii mid ka advanced baan dalban waa ka haddana mid ka duwan buu haddana inoo soo qoray oo kasii maaragtay kasii muhiimsan kasii qoto dheer buu haddana inoo soo qoray. waad aragtaan qoraalkiisa tan waad aragtaan. xaggana bidixna waxaa noo yaala kii hore ee marka hore aan soo qaadanay waa inoo yaala. waad aragtaan.